السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوّاد channel كنا Somali Technology Solution إن شاء الله ما أنت وحنا كوبي بدونا عشرة كوسابسن Cyber Security أيام كجهد لدونا أو أرضي سؤالي كسويدين يو Cyber Security نوعية هاي أنا رقاب وقصة هذلني وحنا كسر دونا مركا operating system yada la isticmaalo kuwa ugu caansan waxaan ka hadli doonaa history-googa xilligii la aasaasay maxaa laga faa'iiday iyo siday u kala duwan yihiin waxaan ka hadli doonaa noocyada hackerada noocyada taageerada ee la isticmaalo iyo sidii looga taxadiri lahaa hadii la yiraahdo insha Allah kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka lana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan waa mahadsantiin kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution halkan waxaan ka bilaabanaa maanta programkan la yiraahdo Linux Unix history in wax yar ka ogaata ayaa haboon waa programmadii ugu horeeyay ee la sameeyay ugu horaantii 1969 xilligaas oo development lagu sameeyay operating systemkan marka programmadaas ayaan eegi doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa operating systemka sidoo kala duwan yahay noocyada operating systemka qaybaha cybercrime-ka loo yaqaan iyo si kala duwan yihiin iyagana waan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa noocyada hackeradu u kala baxaan hackerku noocyadu leeyahay ayaan ka hadli doonaa iyagana so operating systems iyo waxaan ka hadli doonaa qaybaha cybercrime-ka noocyada hackerska haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar saaxiibadana la wadaag like iyo share kana ka iloobin waanad mahadsantiin haddaan ka bilowno history yaroo gaaban brief history for cyber security amba Linux horta dadka hackerska dhammaantood waxay ka yimaadaan Linux iyo Unix ayay aqoon background wanaagsan u leeyihiin marka Unix waa software kii ugu horeeyay ee xilliga la hirgeliyay 1969 Bell Laboratories in New Jersey oo America ayaa lagu sameeyay 1964 ilaa 1968 wuxuuna ku saabsanaa qaybo kala duwan oo multi-user time sharing operating system la isticmaalayay marka waxba history-ga badan inaga faa'iido nooma leh laakiin waa operating system free laga dhigay markii dambe si ay dadku u isticmaalaan free operating system kani waxaad ka heli kartaa Ubuntu oo free software Kali Linux oo free software Fedora Mint iyo qaar kale oo badan sida Android oo kale qaybaha badan bay leeyihiin marka haddii aan operating systemka u nimaadno Linux wuxuu u sii qaybsamaa Fedora Ubuntu Mint Kali Linux oo loo yaqaanay beriga hore Backtrack ayaa loo yaqaanay Kali Linux waxa weeye operating system waxa ku jira toolal fara badan oo lagu sameeyo hacking-ka amba looga taxadiro hacking-ka qofka noqonaya cyber security waxa loo baahan yahay inuu yaqaano arintan inuu si fiican u yaqaan inaan out laakiin intuu ku gaano wuxuu baahan yahay network inuu wax ka ogaado Fedora Ubuntu waa operating system free software wuxuu leeyahay qayb server iyo wuxuu leeyahay qayb desktop labadaba waa laga helaa Google sanaqano waa company weyn operating system ayuu iska leeyahay Android asalkiisu waxa lagu sameeyay Linux ayuu ka yimiday Chrome operating system waxa jirta tableto
Google iska leeyahay kuwaas oo Chrome operating system ku shaqeeya. Microsoft aad meeshan uga jeedin Microsoft waxay samaysaa Windows servers iyo desktop operating system kaas oo ka bilaabmay DOS oo version 1 version 3 version 4 version iyo Windows 95 ilaa hadda aan joogno Windows 10. marka Microsoft isagu wuxuu caan ku noqday inuu businesska xagga business oo target gareeyo caan asaas ku noqday dad badanna ay u barteen businessdu marka businessyada u iibsada. laakiin Linux waa free software free ayaad ku heli kartaa bilaa lacag. laakiin Microsoft waa lacag iyadoo business ay ka samaysaa lacag. Unix waa program isaguna Linux-ka la jaan qaaday. waxaa la edit gareeyay xilligii ugu horeysay Unix November 3 1971 first edition ayaa la soo saaray programmer manually ayaa loo samaynayaa. marka faa'iido uu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa command-adan cat oo laga soo gaabsaday magacan. waxaad arkaysaa chd change working directory markaad bedelaysid. so command line-adaasi qofku waxa loo baahan yahay inuu barto. change mode ch oo change access mode-ka in la bedelo ah. chon ayaa jirta change owner. cb oo laga soo gaabsaday copy files. ls baad arki doontiin oo list directory container. mv oo waxaad arkaysaa move amba rename files iyo qaar kaloo badan ayaad ku baran doontiin hadduu ilaahdo insha Allah. waxaan u geli doonaa qaybaha cyber crime-ka noocyada ay yihiin inaad ogaatid si aad uga taxadirtid amba companygaaga amba cidaad u shaqaysa amba dowladdaada amba waddankaaga si aad ugu difaacdid inaad wax badan ka ogaatid ayaa loo baahan yahay. type of cyber crime-ku nooc waxaa la yidhaha hacking macnaha waxay ka dhigan tahay waa wax bedelid bay ka dhigan tahay. marka dhinac fiican iyo dhinac xun baa labada loo isticmaali karaa waa midi laba af leh. waxa kaloo jira nooc kaloo la isticmaalo oo la yidhaha denial of service attack amba loo yaqaano DOS attack. kaasi waa kii lagu fadhiisin jiray website-dada sida Yahoo-ga iyo website-da kale oo fara badan BBC-da ayaa ku dhacday. nooc kale waxaa jira loo isticmaalo oo la yidhaahdo virus ayaa jira isaguna oo dissemination ku sameeya amba wax ka bedela systemka. waxaa jira nooc kale waxaa dhahda computer vandalism la yidhaha ayaa jira iyaguna oo computerada raba inay kharaabiyaan kuwaas inay laga taxadiro ayaa wanaagsan. cyber terror ayaa jira terrorism kuwaasna in laga taxadiray waan iyagana. waxaa kaloo jira qaar la yidhaha software piracy kuwa softwarada xada iyagana waa noocyo kamid ah cyber crime-ka. okay waxaan u gelaynaa noocyada dambiyada cyberka laga galo ay ka mid yihiin in qofka la xidho amba lacag lagu ganaaxo xadhig iyo lacagna la iskugu daro. noocyadaasi dadku markaa isticmaalaan waxaa kamid ah hacking-ka denial of service aan hore uga soo hadalnay attack-ga viruska software piracy pornographic iyaguna waa nooc cyberka kamid ah oo in la iska ilaaliyo kamid ah. pornographic waxa weeye sawirada qaqaawan waxa linki baa lagu soo diray sawirada qaqaawana markaad click siisay computerka virus baa galay. waxaan lahaa ha laga taxadiro waxyaalahaasi pornographic-ana ma wanaagsano xagii diintana ma wanaagsano maxaa la yidhaahdaa computerkaagana virus baa gelaya. waxaa kaloo kamid ah mid la yidhaahdo ARC crimes ayaa jira isaguna oo in laga taxadiro ah. credit card fraud qaar credit cardada xada ayaa jira iyaguna. phishing ayaa jira waxa la kalluumaysi kani email baa lagu soo diray ama message baa lagu soo diray wax lagu oranayo waa lagu maalgelinayaa shaqo wanaagsan badaysaa. marka bangiga systemkaaga email baa lagu soo diray wax lagu leeyahay haddii waxaanaad heshid waxaanaad helaysaa wax aynkaas ayaa lagu soo dirayaa. cyber stalin qaadayaa baa jira
threatin waxa jira cyber la iskugu hanjabo oo threat kuga dhibaato kuga ah waxa jira mid kale oo dhaca salami attack waa magac kamid ah isaguna marka waa tikniikiyada ay isticmaalaan dadka cyberka isticmaalaya nuucyada hackerska ayaan u gelina markaa nimanka waxa gareeya waa nuuciye nimanka waxa gareeya waa saddex nuuc ayaa lagu qaybiyaa type of hackers qaar waxa loo bixiyay white hat hackers qaad koofiyadooda cadahay koofiyada cadayaasha kuwaas waxa leeyahay waa good guys waa niman aad u wanaagsan maxay ku wanaagsan marka don't use their skill for illegal purpose aqoonta ay yaqaanaan iyo skillka iyo khibradda ay leeyihiin kuma isticmaalaan meel aan loogu talagelin ayaa la inagu yiri computer security expert and help you to protect it from the black hat kuwan koofiyada madowle ayaa la dagaalamaan iyagu marka inay computer hacking ay sameeyaan marka waa nimanka iyagu difaaca ku jira waa kuwa la rabo in la noqdo markaas in ad ka ilaalisid companygaaga iyo waxa computerkaaga iyo shirkadaada iyo waxa waddankaada aad joogtid inaad black hat ka ilaalisid inay soo galaan okay nimanka koofiyad madowda black hat hackers nimanka koofiyad madowda waxa la yiraahdaa waa bad guys waa niman aad u xun walaal wixii madowga waxa lagu macneeyay waa wax xun baa la yiraahdaa moogta bad guys weeyaan waa niman aad aan u wanaagsanayn muhiimadoodu waxa weeye iyagu skillkooga waxay isticmaalaan maliciously or personal gain inay lacag helaan iyagu inta badan waxyaalaha u sameynayaan waa inay money helaan lacag baa ka xigta wax kasto ay sameynayaan inay lacag helaan hack banks bangiyada hackerayaan oo lacagta ka dhacaan steal credit cardada dhacaan iyo website-dada ayay wax ka bedelaan device website ayay sameeyaan nimankan waxa jira qoladooyinkan u dhaxeeya oo saddexaad oo la yiraahdo grey hat nimanka koofiyadooda grey tahay grey hat hackers kuwani markaa iyagu waa combination of white hatka iyo black hatka hackers labadaas isku jiraan waxay ka mid yihiin white hackers iyo black hackers isku jira ayaa la yiraahdaa grey hat gooliskooga markaa ujeedadoodu waxa weeye iyo waxay u socdaan waa hackers iyagu waxay sameeyaan provide national security waxay sameeyaan wadannada ayay ilaaliyaan oo ay security-ga ilaaliyaan marka marna kuwana iska dhigaan labadaba soo markay dadka xun la dhil galeen kuwana iska dhigaan dadka wanaagsan marka la dhilan kuwana iska dhigaan marka labadan oo isku biiray inta badan dadka government-ga u shaqeeya way badidoodu halkaas ayaan ku joojin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin la socod wanaagsan cashareenada dambe